Assalaamu calaykum saaxiibayaal duhurnimo wanaagsan waxaan idin haynaa war degdeg oo haddana soo gaaray oo sheegaya in gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Sheikh Aadan Madoobe lagu sumeeyay wadankaasi Kenya. Sheikh Aadan Madoobe ayaa xaalkiisu aad u daran yahay hadda oo eheladiisu ay ula carareen cusbitaal ku yaala wadankaasi Kenya. mid ka mid ah ehelada aadka ugu dhow Aadan Madoobe ayaa shaaciyay inay aad uga shakisan yihiin in dowladda Kenya ay sumeysay Aadan Madoobe. Aadan Madoobe ayaa xaalkiisu hadda aad loola tacaalayaa, xaaladiisana sida la sheegayo waxay ku dhowdahay quusid. Ilaahay ha u boogadhayo gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Sheikh Aadan Madoobe ayaa aad looga dayrinayaa haatan xaalkiisa. dowladda Kenya ayaa lagu tilmaamaa wadamada ugu dhow ee Soomaaliya siyaasiyiinteeda sumeeya. hadda ka hor ayaa Kenya aad loogu dhaliilay inay sumeysay siyaasi ama madaxweyne hore Cabdiqaasim, Ilaahay ha u naxariisto. Aadan Madoobe ayaa aad looga walwalay haatan xaalkiisu maadaama uu yahay gudoomiyihii baarlamaanka oo ka soo wareegatay muddaduu xilka qabtay wax aan ka badnayn hal bil. Warsida TV iyo guud ahaanba ummadda Soomaaliyeed waxay u rajeynaysaa gudoomiyaha baarlamaanka inuu Ilaahay ka soo kiciyo xanuunkan halista ah ee haleelay gudoomiyaha. dhageystayaal waa naga intaas xogtii degdegga aheedan hadda nila soo wadaagnay. fadlan kanaalkeena ku xirnaada, subscribe saar, like saar si aad ula socoto warka ku xiga. mahadsanidin.